جيجدا ديورده هيدرا ربود waxaa ka soo degay fanaanka caanka ah Maxamed Saciid Biike iyo abwaanka dhalinyarada ee Cabdilaahi Xasan Ganay iyadoo ay maanta ahayd maalin ay dhammaan bashariyada reer Soomaaliland ee dalka UK ay ku soo dhaweynayeen fanaankaasi iyo abwaanka haddaba TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kamarada la dhaxraacay dhammaan dadkii halkaasi ka soo qayb galay iyo abwaanka iyo fanaanka oo iyaguna laba kelmadood halkaasi ka yiri oo ah sida ay ugu faraxsan yihiin inay u yimaadeen jaaliyada reer Soomaaliland UK hadaladoodina waxa ka mid ahaa sida tan dhammaantiin subax wanaagsan baan leeyahay aad baa mahadsantihiin meel kasta joogtaan taageerayaasheeda intay arkaysay intay soo dhaweysay asxaabta qaaliga saakayga hortimi Cabdilaahi Xasan Ganay oo ila socday dhammaan aad baan idin salaamayaa inta na soo dhaweysana waxaan leeyahay aad baa mahadsantihiin cisiyo sharaf ku noolaada waan joognaa ma sha Allah wixii aad nooga barateena waa sameeynaa aad baad mahadsantahay Cabdilaahi Xasan Ganay ayaan rabaa asagana inaan laba kelmadood weydiiyo runtii Cabdilaahi Xasan Ganay waxa weeye nin dhalinyaro ah waxaana dhalay abwaankeenii weynaaye Xasan Ganay asaguna waa abwaanka abwaan dhalay marka waxaan ku leeyahay Hidro Airport ku soo dhawow maxaad oran lahayd macaajimiinta iyo dadka ku soo dhaweeyay reer Soomaaliland iyo inta macaajimiinta ku aaba waxaan leeyahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta halkan joogno mahad ballaaran baan u naqayaa shacabkana soo dhaweeyay reer Soomaaliland oo nagu sharfay naguna casuumay inaan halkan idinka soo qayb galno aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad u mahadsantiin aad iyo aad baad mahadsantahay Caynaawi Cismaan Ducaale iyo Gule TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Heathrow Airport London